dowladda Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay in hay'adda NISA ay taageerto howlgallada Al-Shabaab ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. Axmed Maxamed Ibrahim ayaa ka waramaya qodobkan. dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay war ay tabiyeen qaar kamid ah warbaahinta Kenya kaas oo taliska hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA lagu eedeeyay inay taageeraan dagaalamayaasha Al-Shabaab kolka ay Kenya weerarayaan. warkaasi ayaa shalay lagu daabacay The Star iyo The Standard ee ka soo baxa gudaha dalka Kenya. waxa ay sheegtay dowladda Soomaaliya in warkaasi been abuur uu yahay waxayna ku tilmaamtay weerar lagu bartilmaameedsanayo dowladda iyo hay'adeeda loona baahan yahay laga feejignaado. hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxa ka go'an inay sii wado dagaalka lagu jiro dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale wararka been abuurka warbaahinta Kenya ay tabisayna waa mid la doonayo in lagu dhaawaco hay'adda NISA ayaa lagu yiri warkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in laga fogaado wararka propagandada ah ee la xiriira NISA. sidoo kale warbaahinta waxay ku boorisay in aragti fiican ay ka qaataan arrintan oo kale isla markaana ay ka fogaadaan war aan la hubin oo bulshada marin habaabin kara. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay shaacisay in dad gaaraya 36 qof laga helay cudurka safmareenka ee dunida faraha ba'an ku haya ee COVID-19. 36 qof ee laga helay cudurkan ayaa ka mid ahaa 47 qof oo laga baaray xanuunka 24 saac ee aynu soo dhaafnay. tirada dadka uu soo ritay cudurkan ee Soomaaliya ayaa haatan gaartay 116 qof sida lagu shaaciyay war qoraal oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya habeenkii xalay ahaa. qalabka lagu baaro cudurka COVID-19 ayaa la keenay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ayna taasi ay sahashay in 24 saac kadib la helo natiijada baaritaanka dadka looga shaki qabo xanuunkan halka markii hore ay natiijada baaritaanka qaadan jirtay muddo toddobaad ah oo dalka dibadiisa loo diri jiray si loogu soo ogaado. isku dhac dhexmaray ciidamada booliska magaalada Caynaba iyo dad shacab ahaa ayaa lagu dhaawacay taliyihii booliska magaaladaasi iyo askar ilaalo u ahayd. war soo saaraheena Yunis Duraan Cali ayaa soo koobaya. wararka ka imaanaya magaalada Caynaba ee gobolka Togdheer ee Somaliland ayaa sheegay in xalay halkaasi uu ka dhacay gacanka hadal dhexmaray ciidamada booliska Somaliland iyo dad shacab ah oo dhalinyaro u badan. isku horimaadkan ayaa ka dhashay kadib markii ciidanka booliska Somaliland ay isku dayeen inay kala yeeriyaan dad shacab ah oo iskugu yimid mid ka mid ah maqaayadaha magaaladaas xilli Somaliland mamnuucday in dadka iskugu tagaan hal meel iyadoo laga cabsanayo xanuunka coronavirus ama COVID-19 oo kiisaskiisa laga helay Somaliland. inta la xaqiijiyay waxa dhacdadaasi wax ka soo gaartay taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer Xasan Ismaaciil Gacmayare iyo dhowr askari oo kale waxaana lagu soo warramayaa in dhaawacooda loo qaaday magaalada Burco. taliyaha dhaawacmay Xasan Ismaaciil ayaa wuxuu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay isku horimaadka dhexmaray ciidamada booliska iyo dadka reer Caynamo. waxaa dhacay wax weyn maaha dhowahay hadda burxan kala hadlayahay jooga waxaad guriga aan deganahay ku dhegan hadda badan ku soo ururay kuraasi waxay la soo dhigteen albaabadaydii ka dareerayaan usbidi wada soo shiiday markaa alxamdulillah dhagaxa soo dhacay wasiga dhacay wax weyn maaha oo aad baan u fiicanahay xaaladayda caafimaad laba askari oo iyagaashiisii wax ku noqday baa jira waxay ka bilaabday waa tan waqti lagu jiro xaalad lagu jiro xanuuno iyo waxyaalo jiraan maqaayad baa waxay isugu yimi ilaa 60 qof markaasay albaabadii guriga aan ka gelin kuraasii soo dhigteen marka dadkaasu baanu kala dareerinayay dhaawacyo sahlan weeye waanu fiicanahay aniguna waaniga badeed kula hadlayo askartuna wax sidaa u sii weyn maaha wax dhaawac culus oo khatari dhagax buu ahaa dhagax tuuray lagu soo tuureen qoladii dhakhaatiirta unbaa ku tala bixisay haddana aanay lahayn egetray ama qalabkii kale baadhista iyo hubsiimo amaanka gudaha u kala deganaa ciidanka booliskana amaanka gacanta ku haya dadkiina waa kala deganaa u kala yaaca. arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo Somaliland amar ku bixisay in la xiro goobaha dadka iskugu tagaan si looga hortago cudurka dilaaga ee coronavirus. maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ayaa wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle ugu baaqay in dhaqaatiir ay geyso kontaroolada laga galo gobolkaasi. Bashiir Cali Daahir ayaa warkan ka soo diray magaalada Jowhar. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa faray wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dhaqaatiir gaarsiiso baraha kontarool ee laga soo galo deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe. war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu faray wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay dhaqaatiirtaasi ay geyso baraha kontarool si loo baaro muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si loo ogaado xaaladooda caafimaad. afayeenka maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdinaasir Maxamuud Cali ayaa saxaafadda ugu warbixiyay.
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa loogu baaqayaa inay kontaroolada laga soo galo gobolka Shabeellaha Dhexe oo ugu horeeyo kontaroolka Balcad iyo deegaanada xuduudda la leh gobolka Banaadir inay geeyaan dhaqaatiir u haylan si loo xaqiijiyo muwaadiniinta ka soo gudbaya gobolka Banaadir ee aan jaarka nahay oo aan darisnahay. waxaa la farayaa wasaaradda caafimaadka inay aad u taxadirto hubisana badqabka muwaadiniinta halka ka soo gudbaya. sidoo kale waxaa la farayaa qof walba oo muwaadin ah oo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe inuu taxadir dheeraad ah muujiyo lana raaco dhammaan fariimaha iyo talooyinka baxda caafimaadka. dhinaca kale maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa afaray dadka u dalxiis taga deegaanada xeebta ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Warshiiq Cadalle taasoo la faray mas'uuliyiinta degmooyinkaasi in ay hakiyaan goobaha dalxiiska loo yimaado xilli caabuqa coronavirus laga hortagayo. gudoomiyaasha degmooyinka Cadalle, Warshiiq iyo Balcad waxaa la ogeysiiyay digreetadan ama warsaxaafadeedkan laamaha amniga ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa si ku meel gaar loo hakiyay dadkii u soo damaashaad tagi jiray degmooyinka xeebaha degmada Warshiiq Cadalle. sidoo kale asigana waxa la hakiyay dadkii u soo damaashaad tagi jiray ama u soo daabasho tagi jiray marbiyoodka degmada Balcad si ku meel gaar loo hakiyay. waxaan rajaynaynaa haddii musiibadan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay naga saaray inaan dib u bilaaban doono damaashaadkii iyo dalxiiskii gobolka caan ku ahaa, laakiin si looga hortago faafidda cudurkan iyo magaalada Muqdisho oo farabaan ku hayo annagana xuduud la leenahay waxaan maamulku soo jeedinayaa in la hakiyo isku imaatimada iyo dalxiisyada noocaas oo kala ah. Bashiir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. taliska ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay sii kordhayaan xubnaha dagaalamayaasha shabaab ee isku soo dhiibaya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya. taliyaha ciidamada xoogga dalka Jarnaal Odowaa Yuusuf Raage oo ka warbixiyay howlgalladii u dambeeyay ee ka dhacay gobolada dalka ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab badan ay isu soo dhiibeen ciidamada dowladda. qoraal uu bartiisa Facebook soo dhigay Jarnaal Odowaa ayuu ku sheegay in ciidamada dowladda ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan dhalinyarada ka soo goosatay kooxda al-shabaab. taliya Odowaa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay si isdaba joog ay isu soo dhiibayeen dhalinyaro ka tirsanaa kooxda al-shabaab, waxaana dhalinyaradaasi ugu dambeeyay oo ciidamada dowladda isu soo dhiibay Maxamed Aadan Isaaq oo magaciisa afgarashadu yahay Dalxa. wuxuuna al-shabaab ka tirsanaa muddo 9 sano ah oo uu kaga soo biiray kooxda al-shabaab gobolka Gedo. Maxamed Aadan sidoo kale waxa uu ka mid ahaa shabaabkii ka dagaalamay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose, waxaana markii dambe u suurto gashay inuu isu soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada militariga Soomaaliya, isla markaana deegaano ka tirsan goboladaasi ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xoogga, waxaana deegaanadaasi ugu dambeeyay oo gacanta ciidamada dowladda soo galay Camaara iyo Janaale oo ka kala tirsan Mudug iyo Shabeellada Hoose. war hadda soo dhacana dhageystayaal waxa uu sheegayaa in xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in hadda uu geeriyooday. Axmed Siciid ayaa iminka stuudiyaha uga sugan. Axmed, soo dhawow. Maryam, waa mahadsan tahay. warar hadda idaacadda Kulmiye ay xaqiijisay waxa uu sheegayaa in xildhibaan Aadan Xasan Cali oo jamhuuriye loo yaqaan kana mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu geeriyooday isla markaana uu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. xildhibaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in xildhibaanku inuu xalay xilli dambe uu geeriyooday. sidoo kale waxaa xusud mudan in xildhibaanku uu ahaa xogayihii guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana leenahay Ilaahay u naxariisto. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu ka mid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa iyo sidoo kale wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka tacsiiyay iyaga oo eeba ugu baryay xildhibaanka inuu naxariistii janno ka waraabiyo. waad mahadsantahay Axmed. ciidamo ka wada tirsan maamulka Puntland ayaa xalay ku dagaalamay magaalada Garowe ee caasimadda maamulkaasi. Cumar Maxamed Soomane ayaa faahfaahinaya. 2 qof oo mid askari uu yahay ayaa ku dhaawacmay israsaaseen ka dhacday cisbitaalka guud ee magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland, waxaana dhaawacay israsaaseenta ay ka dambeysay kadib markii rag hubaysan la sheegay inay isoristaag ku sameeyeen aas la doonayay in magaalada Garowe loogu sameeyo
sarkaal ka tirsanaa ciidanka daraawiishta maamulka puntland oo shalay ku geeriyooday isku dhac dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta puntland waxaana isku dhacaasi uu ka dhacay meel u dhow degmada dangaroonyo ee gobolka nugaal hase yeeshee sarkaalka ka tirsanaa ciidanka daraawiishta puntland oo meydkiisa la geeyey magaalada garowe caasimadda maamulka puntland ayaa la doonaya in halkaasi lagu aaso hase yeeshee ila xog ogaala ayaa xaqiijinaya in ciidamada ay gacanta ku soo dhigeen raggii hubaysnaa ee diidanaa in la aaso marxuumka isla markaana ay suuragashay in habeenkii xalayta lagu aaso gudaha magaalada garowe caasimadda maamulka puntland lama garanayo ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa in kooxda hubaysan ay diidaan aaska marxuumkaasi balse ciidamo ka tirsan kuwa amniga puntland ayaa ka hortegay iskudayga ay ku doonayeen in ay ku diidaan aaska sarkaalka ka tirsanaa ciidanka daraawiishta ee israsaasaynta ka dhacday duleedka degmada dangaroonyo ee gobolka nugaal ku geeriyooday ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada maamulka puntland ee ku aadan dhacdooyinkan isxigxigay ee ka kala dhacay degmooyinka garowe iyo dangaroonyo kuwaasi oo ciidamo ka wada tirsan maamulka puntland gaar ahaan kuwa daraawiishta ay isku rasaasadeeyeen duleedka degmada dangaroonyo halka kooxaha hubaysanna ay weerar ku qaadeen gudaha cisbitalka magaalada garowe halkaasi oo ay ku diideen in sarkaalka geeriyooday lagu aaso. dowladda South Africa ayaa shaaca ka qaaday inay yareynayso saacadaha bandowga saaran dalkaasi kadib hoos u dhac ku yimid dhaqaalaheeda. Wariyaheena Sharmaarkan Nuur UK ayaa warkan ka soo diray dalka Koonfur Afrika. dowladda Koonfur Afrika ayaa ku dhawaaqday in si tartiib loo qafiifin doono xaaladda bandowga saaran dalkan Koonfur Afrika si dib loogu soo celiyo dhaqaalaha wadanka iyadoo dadka loo ogolaan doono fasax kooban oo danahooda gaarka ku qabsadaan warshadaha iyo shirkadaha muhiimka ah ayaa dib loo furi doonaa. waa tallaabada ama wajiga labaad ee lagu wajahayo COVID-19 sida ay sheegtay Dlamini Zuma. sidoo kale wasiirka madaxtooyada isla hadla ayaa sheegay inay dhici karto in bandowga saaran wadanka dhammaan aan la wada qaadi doono 3 Abriil taas oo hore dowladda u sheegtay in 3 Abriil ay tahay xilliga uu ku ogyahay bandowga. intaanba wasiirka madaxtooyada oo saxaafadda la hadla ayaa sheegay in bandowga oo sii socon doono inta dadka cudurka oo soo ridanayo ee sii kordhaysa balse ay jiri doonto in bandowga sidii hore laga qafiifin doono oo qaybo muhiim ah la furi doono sida maqaaxidaha raashinka lagu iibiyo goobaha gawaarida lagu sameeyo iyo sidoo kale kambaniyada ka shaqeeya farsamada korontada. bandowgan saaran dalkan Koonfur Afrika ayaa waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada kala duwan ee dalkan Koonfur Afrika. Sharmaarkan UK KNN South Africa. waad mahadsantahay Sharmaarka UK. halka warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka bini'aadanimada ayaa sheegtay in ugu yaraan 32 ruux oo shacab ah lagu dilay weerar ka dhacay dalka Myanmar. weerarada ayaa dhex maray kooxo hubeysan oo raadinaya xornimada gobolka Rakhine iyo ciidamada dowladda Myanmar. afayeenka hay-adda ayaa sheegay in weerarada lagu dilay 32 ruux oo shacab ah halka 17 kalena ay ku dhaawacmeen tan iyo bishii Maaj waxaana dadka dhintay badankood uu sheegay inay yihiin haween iyo caruur. sidoo kale waxaa la burburiyay dabna la qabadsiiyay iskuulo iyo guryo. ugu dambeyntiina saynisyahano ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa sheegay inay soo saari doonaan ugu yaraan 1 milyan oo cirbad oo talaal ah oo loogu talagalay dadka qaba caabuqa COVID-19 bisha September ee sanadkan. dowladda Ingiriiska oo mashruucan taageeraysa ayaa sheegtay in aanay jirin wax damaanad ah isla markaana aanay suuragal ahayn in muddo loo qabto soo helista talaalka. bukaanka ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya tijaabada Oxford ay wado ayaa la filayaa in talaalkan lagu tijaabin doono toddobaadka dambe. hase ahaatee weli lama ogaan kara waxtarka talaalkaasi yeelanayo. khubarada badankood waxay weli qiyaasayaan in ay qaadan doonto muddada 12 bil ilaa iyo 18 bilood in la helo talaalka oo soo saaristiisa ay qaadan doonto muddadaasi la shaaciyay.